kana waa tusaale kale oo ah xisaabta basekeedu uu kala duwan yahay oo ah casharo. waxaan soo aragnay baseku markuu isku mid yahay, kana waa markuu base kala duwan yahay. hore waxaan usoo aragnay ku darta, kana waa cashar. okay, basekeenu wuu kala duwan yahay, waa 8 iyo 3. باورka kor ma fiirinay, baseka ayaa la fiirinaya oo ah numberkan 6 9 8 3 kaas ayaa la fiirinaya. okay, markuu basekaagu kala duwan yahay si caadi ah ayaad uga shaqeynaysaa. waxaan bilaabaynaa inaan ka shaqeyno kan oo la mid ah numberkan u horeeya kan kaliya oo ah 8 lagu dhuftay 8 oo la mid ah 64. so halkan numberka waxa weeye waa 64 laga jaray kan wuxuu yahay waa 3 oo hal mar la isku dhuftay, wax kale lagu dhufto male, waa 3 oo hal mar la isku dhuftay. hal ku dhufo waa 3 kan marka maadaama uu 3 yahay 3diisa ayaan soo dhiganaynaa. okay, 64 marka laga jaro 3 waa 61. taas ayaa waxay tahay ansarkeenu u dambeeyey su-aasheena. kan ayaa kuu soo haray. wax uu ka bedelan yahay xisaabtan ma lahan marka laga reebo powerka oo eber oo la rabo ina awaatid wuxuu yahay. okay, kan hore ayaan ka shaqeynaynaa oo ah 6 baseku 6 yahay, waan u baahnaa inaan ka shaqeyno. okay, waxay la mid tahay taas marka 6 lagu dhuftay 6 oo la mid ah 36. 36 marka halkaan ugu qor. laga jaray kan wuxuu la mid yahay, waxaan nidhi number kasta oo powerka kor u saaran uu eber yahay wuxuu la mid yahay 1. sidaa darteed intaan oo dhan waxay la mid tahay 1. soo hal baan ku qoranaynaa halkaan. 36 marka laga jaro 1 waxay la mid tahay 35. xisaabteena jawaabteedu waxa weeye 35.